haddaad xanuunsato rabbigaa bari isaga unbaa dhibaatada kaa qaadi kara ha u malaynin in dhakhtarku uu wax kuu qaban karo haddaan rabbi ku ilhaamin xabatu sawda iyo malabka asalka ahoo la isticmaalo ayaa dawo kasta ka fiican maxaa yeelay allah iyo rasuulkiisa ayaa inoo sheegay inay daawo yihiin ha daaweyn qofna cilmi la'aan maxaa yeelay waxaad samaynayso rabbiyaa kugula xisaabtamaya dawo aan dhakhtar saxa ay kuu qorin ha isticmaalin dawo ha weydiisan qof aan dhakhtar ahayn dawo ha cunin oo qofnaha siin haddaadan ogeyn waxa loo isticmaalo iyo dhibaatada ay keensanayso ogow daawo kasta waxay leedahay dhibaatooyin badan ha ku degdegin isticmaalka dawo aan dhakhtar kugula talin dawooyinka dhig meel carruurtu aysan gaarin dawooyinka dhig meel aan qorrax ahayn samayso armaajo yar oo derbiga meel kore lagu dhejiyo furana leh oo dawada la dhigo si carruurta aysan u gaarin rifeetar iyo rafadiin weligaa ha u isticmaalin waxaan loogu talagelin waa daawooyin qaaxada loo isticmaalo haddii carruurta ama qof weynba qandho qabato meel neecaw leh gee dharkana ka yaree ha huurin dabadeedna shukumaan biyo ku qoo oo marmari haddii carruurtu ama qof weynba shubmo oo rsc farmashiyada badankood lagama helo dawo teetanada loo isticmaalo waayo waxay rabtaa dawadaasi inay qaboojiye ku jirto oo 2 digrii tahay dhaawac yaryar ku dhaq biyo qandac ah oo milix ama cusbo leh sida biyaha baddoo kale carruurta bar inaad siiso cuntooyinka faa'iidada leh sida galleyda digirta hilibka caloolayda masagada mooska cambaha ukunta iyo wixii la midka ah ma wanaagsana cuntooyinka lagu badiyo sokorta dufanka iyo cusbada ha cunin cunnada aan daboolneen ee suuqa taalla ha gadan rootiga suuqyada lagu iibiyo haddii uu ku jiro weel afmaran haddii aad gadatidna iska kululee qudaarta nuuca aan qolofka lahayn si wanaagsan ugu dhaq biyo qandac ah nadaafaddu waa qayb ka mid ah caafimaadka intuu qashin kuu jiro ayuu cudur kuu jiraa jikada nadaafadeeda waa muhiim ee ku dadaal jirka nadaafadiisu waa lagama maarmaan musqusha nadaafadeedu waa lama huraan bar carruurta iyo dadka waaweynba in marka qofka musqusha ku soo xaajo guto uu gacmaha saabuun ku dhaqo weelasha loo isticmaalo musqusha sida baaldiga caaga iyo wixii la midka ah weligaa ha uu isticmaalin jikada cunnooyinka gasacadaysan intaad ka fogaan karto ka fogow karootadu waa cunto fiican oo u roon indhaha ee bar naftaada iyo carruurtaadaba jawaafaha ama saytuunku aad buu u wanaagsan yahay cunnooyinka la isku daro ama la isku shiido waa faa'iido badan yihiin sansayeeri isticmaal habeenkii markaad seexanayso khaasatan haddii aad ku nooshahay dhulka neeco leh cudurka isfiilatadu waa cudur halis ah haddaad isku aragto calaamadihiisa la xiriir dhakhtar inta uusan darajada ugu sarraysa kugu gaarin qur-aanka oo akhrintiisa la badiyo caafimaad badan bay leedahay carruurta ka ilaali ciidda inay cunaan ciidda waxaa ukuntooda dhigta gooryaanno badan cagacaddaan ha ku socon hana u oggolaan in carruurtaadu ku socoto gaar ahaan meelaha qoyan waxaa laga helaa bahla ku nool oo si sahlan qofka u gala nobaljiin ha isticmaalin nuuc kastoo uu yahay waayo waa daawo khatar ah adduunkana hadda lagama isticmaalo gaastarigu waa cudur khatar ah rabbina ha naga badbaadiyo sida dadku u sheegayaanna ma aha mana dhici karto in dadkoo dhammi qabaan cadayga oo aad loo badsado ilkaha caafimaadkooda ku jira ee ku dadaal asbiriin ha siin carruurta 12 sano ka yar wuxuu u keenaa dhibaato dawo qof loo qoray ma ahan in qof kale la siiyo dadku isku cudur ma ahan dhakhtar unbaa sheegi kara wuxuu cudurka qofku qaba yahay daawada cirbadda ahi ma ahan daawada ugu sarraysa qofku intuu afka wax ka qaadan karo cirbad uma baahna faleebada dad badan waxay u haystaan inay wanaagsan tahay laakiin ogow inaysan wanaagsanayn haddii la siiyo qof aan u baahnaynna dhib badan u keenayso ogow afku waa meesha ugu fiican oo ilaahay ugu talagalay oo qofku wax ka qaadan karo haddaad sharoobo ama kaniini furtid ogow waxaad isticmaali kartaa muddo gaaban dad badan baa meel inta dhigta haddana dib u isticmaala muddo kadib sax maahan haddii haweenta uurka lahi ay cunnada iyo biyaha badsato in cunugu uu ku weynaanayo dabadeedna ay fooshu dhibayso waxaase sax ah in haweenta uurka leh loo baahan yahay inay cunno fiican iyo cabitaankaba badsato si ay awood u yeelato taasoo keenaysa in dhalmadu u fududaato hase iska ilaaliso barafka badan naaska cunuga waa in la siiyo ama la nuujiyo 2 sano haweenaydu hadday uur yeelato iyadoo nuujinaysa dhib ma leh inay cunugeeda sii nuujiso waase in haweenta nafaqo fiican la siiyo maadaama ay 2 shaqo isku hayso sidaas waxaa ku taliya dhaqaatiir badan canuga dhasha waa in la siiyo naaska marka uu dhashaba si degdega waayo caanaha naaska ugu horreeya waa kuwa ugu fiican haweenta naaska nuujinaysa waa inay naaskeeda si gaar ah u dhaqdaa ugu yaraan maalintii 2 mar carruurta ha ku nuujin jiifka
haddii kale waxay khatar ugu jiraan in dhaguhu dilaacaan ama muruq galo. Guriga waa in dariishadaha loo furo oo qorraxda iyo dabayshuba soo galaan. Carruurta yaryar waa in qorraxda la tuso ugu yaraan maalintii hal mar. خضر بربربه كالفتاء